Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabaday daawadayaal idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada. Hasn't yet. So this one. Intan haraadiga ah ayaanu doonayaa inuu isaguna wax ka cuno. Waraabaha lafahani waa u raashin, waayo ilkihiisa oo aad u xoog badan awgii ayuu ku jajabin karaa cuntana ka dhigan karaa. So this one. Boqortooyada libaaxu markay timaado waxa kale xayawaana ee meesha jooga waa ka yaacayaan. Waxaanu haddeer ku soo noqday haraadigiisii. Waa maalintii labaad ee haraadiganu halkan yaallo. Waraabuhu waa maquuste, waanu sugaa oo kolba meel ayuu ugu gabadaayuu kaga soo baxaa. Libaaxuna halka uu ilaashanayo ee u kalbaha uu eryanayo waraabaha iyo wixii meesha joogaba. Waraabayaasha iyaga laftigoogu waa qoysas islaaya. Qoys kale oo waraabayaala ayaa ku soo biiray haraadigii, waxaanay isku haystaan haraadigan yar ee halkan ku siyaarsani. Kama marna gorgorkii iyo weliba dacawaduna, iyaguna haraadiga laftigeega ayay iyaguna cunto ka doonayaan. Kooxdii waraabayaasha ahaa ee weliba labada family iskugu jiray ama labada qoys ahaa ee iska soo horjeeday isku leynaya haraadiga, mid kasta wixii uu ka qaadan karayay meesha waa ka qaatay. Qaar waxay qaateen haraadiga harag ku hadhay, qaarka kalena waxay qaateen lafihii, kuwaasi oo cunto u noqday maanta iyagana waraabayaasha. Watahay daawadayaal, barnaamijkeenana intaas ayaynu kaga gudbi doonaa. Tan iyo intaynu barnaamij kan lamid ah ama taxanayaal aynu ku kulmi doono, waxaanu leenahay dhammaantayo nabadgelyo.